waxaan aad uga xunnahay maxamed baashe xaaji xasan xukuumadda maanta jirta ee fashilantay ee hantidii ummadda koox yari ay qaadatay ee dadkii soo wada ooteen ay bakhtiyayaan in maanta marka uu qof aqoon leh oo dalkan taariikh ku leh uu yidhaahdo war waxaasi ma wanaagsano oo keliya in sabaa-inta ay leeyihiin inta ay soo diraan la laalaabiyo weliba loo diida in lala kulmo oo raashin loo geeyo oo intaasoo qof oo karaamo leh oo ummadda karaamo ku leh inay soo salaamaan subxaana allah oo waxa uu doonayay u baahan yahay isagoo la leeyahay weliba xanuunada qaarkood buu leeyahay oo dawooyin baa la doonaya in loo geeyo lan yuqbala minhu adeer wax la aqbali karaya maaha waa u sheegaynaa kuwa meesha fadhiya ee mid waliba 10 kalan cruiser gurigiisa dhigtay caruurtoodu Mareykan iyo Malaysia iyo dalalka aad og tahay ee qaarkood jaamacadahoodu sanadkii $60,000 ay yihiin sanadkii oo kaliya ay u joogaan iyadoo inta soo oodatay maanta Somaliland gudaheeda xataa maanta taariikhda aynu ku hayno ay dhacday maalin dhaweyto sidii bariga ka dhacday in la arko neef gaajoonaya oo ilmo caruur oo 3 bilood jiray halkiisa qaybo jidhkiisa ka mid ku cunay dadka noloshoodu caynkaa tahay in maanta la yidhaahdo waxa weeye qof baa yidhi waxba inaga qaldan lagu xidho lan yuqbala minhu wax la aqbali karaya maaha walaysat adeerkumana jirto wixii aynu ku heshiin warkada ayaanu leeyahay waa lagu duminaya sidaas waayo dadku nin geed ka dhashay ma jira adeer oo meel cidla fadhi waxa laga diiday rag ahaa jannada loogu bushaareeyay ilaahay ka tilmaamay dadka oo dhan ee samada inta laga soo diro malag la yiraahdo nabi allow hebel salaan naga gaarsi ilaahay leeyahay kuwaas laga diiday adeer وكان مستجاب الدعوة عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيدا عينه تاريخ ذا كواينه جمعوا الله ضدك المسلمين مركا من بركي سوقو تاغن أوحى وصوقة اسمعوا وأضيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن على رأسه السبيبة ما أقام فيكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حديث كاسو آخرين وحولي كوا يدين تاليا يالا أو أقبلا انتي وناقي يدين كوهو قاملين وركا صف كوري وحفظي صحابي قال الله يقال سلمان الفارس سلمان منا سلمان أهل البيت سلمان أنه نقمدي وأهل البيت كي يقول رسولك عليه الصلاة والسلام ويستاقي وحلالي وحنو كايرين أما تشربه اسمعوا واضيعوا ما شقين سي أمير المؤمنين عمر بايابي سلمان مركو يري ولا المحاد ولا ذي سداس يقول ده شلي ضربة يمن كيمد قيال عد بيهاين مسلمين تورنا بعضو قيبسي نول بحبت بعد وديبتي أظن صاك هالكنادي سوته طلبات كسر عدي بمن وحظي ذي مقلة أو إيالا أنت تقول نور ديبتي أدنى الله كسر عدي هالكي مقرتي مقلة إيالا ضايع كشخيني سبوه صفكي بوسيدا وياغي سبحان الله قفوا باربار يا مركاسي او وسلي هي سلمان الفارسي هو جواب تبتوحي قوم يا عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر وحق دبي استاغن بولي استاغ وحول وربل ولالك هو جواب تركبوها عمر بن الخطاب اادو قرشه بدن مسلمين تي نو والبدي لجمعه واتل يلي قفك waa inuu dharkiisa ugu wanaagsan xidhaa qof walba wuxuu sitaa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin gooy cadaab sita dabta wuxuu waraniga miya goo cad oo cusub igu aragtaan maya abahay waa nin dheer goo kaliya kuma filna war goo labaadii uu sitaa waa goo aygi Salman ayriya Amir al-Mu'minin imikaanu garanay goo labaad halkaad ka keentay khudbadaada iska wada waa ku yeelinay isaguna iska fariistay Abdullah ibn Umar bin Khattab noo fariistay subhanallah khudbadii sidee bay ku socotay
adar islaamka gudihiisa waxa la yeeli waayay oo Umar bin Khattab laga yeeli waayay oo muslimiinta oo dhan Abu Bakr kadib saxaabigii ugu fadliga badnaa ah oo intaasoo xadiis ay ku soo arooreen oo saxiix oo Bukhari iyo Muslim ku sugan inuu laba go iska soo qaato isagoo muslimiinta go kaliisi oo leeyahay waxba laga dhageysan maayo balorta jooji khudbadaada yeelay waxaas ma shaqeynaysa ya innaga aqoonyahankeennii baa fashilmay hogaankeenii baa fashilmay tujaarteennii baa fashilantay culimadeennii baa ku fashilantay dalkani inuu dal noqdo la wada leeyahay hoggaan toosan hela ninka dhinac ka rarayna warkada hargeysa waxaynu ugu nimid in ka badan 15 kiiloomitir oo taliskii aynu la dagaalanay ee Maxamed Siyaad Barre uu ka tagay markaynu ku kala tagnay cidi gaar iska qaadatay dhulkan ka hadlaya adeer muxuu yahay per meter square was $7,200 per meter square meter square ko oo kaliya waa $7,000 dhulkan ka hadlaya guriga kaliya sidaa waa 150 mitir sidaana waa 200 mitir balaadar imika isku dhufo imisa meter square buu noqonay times 7,000 ku dhufo guriga ugu yar 1.9 million buu noqonay bal intaas 530 guri oo shacabka abul ku dhufo maanta intaas iska daa horumar waxa waxa ay wasaaradaha ay dhiseen ee boqolkiiba 50 ay leeyihiin waliba iyada ay nagu caawisay guri kaliya oo maanta hargeysa ku yaala oo nin qaatay oo uu ku qaatay sababta dawladda oo noqonaya 14.8 million ayaa halfkii bay noqonayaan wax laali waxay dhiseen oo dhan idan in la yiraahdo oo aynu qiranno inaynu fashilanay oo aynu u baahanahay aqli iyo cilmi iyo garasho kii hargeysa oo dhan qaatay Soomaaliland oo dhan ku shubtay wuxuu doonay yeelaya la og yahay taariikhdiisa yusafiqoon ayaa kun hablood iyo kun hooyo iyo maxay yusafiqoon ayaa durmaanka iyo magaratay nin aad u muslimo ragid diinta fahmay ah Abu al-Hasan ala al-Hasan al-Nadawi subhanallah wa kun yasagab qoliyan ya afartanki ayuu kitaabka qoray علماء المسلمين كتاب كيابت ماذا خسر العالم بانحداد المسلم ما حد جنيدو أي أخسارتي مركي لبربريي هوغانكي مسلمين كتاب كجيبي سب الله يلا وحكوا شرا حاجة ضمن فقدان الوعي وحول المسلمين لباطة هايستا إليهن ضد ساحري إليهن ضد هبسامي وعرفتوا أي وجوه رسولنا taladooda marka ay noqoto buuri kii ay tijaabiyeen ee yaqaaneen ee munaafiqa ah ee kun goor jabiyay ee inta soo khalad galay waxa u fudud buu yiri inuu si yar oo dib yar talada intuu u fariisto ay sacabka u garaacaan kooda ugu wanaagsan ee la jecel yahay ee wanaaga u ololeeya ee inta badan nafiyo maalba u horay way adag tahay siday u fahmaan ayuu wada ma yisma fuqdaan al-wa'i dhibaatada muslimiinta haysata taaway adar maxaa Trump haysta Donald Trump waa empire Mareykanku maanta boqortooyadiisu waxay gaadhay bal orodoo imka suuqa tag islaanta 9 jirka guriga marka aad ugu tagto dollarka intay sida u masaxdo subhanallah ayay shandad yar oo maas oo qurux badan bay u sameeyay waa maxay sababta وبقرتوية بريكن كمان تسميستي إن إسلامته إنها أو سجاشن شركي أي نوت كمريكن كإلاليسو هذا الود داسي قاري لحكون تضوبقول يكونتر مدح أيو ما أنت كسيتا سامسونايت كوسيتو ومدول ببطن كوتابتا تضبط قاردود ما أنت شراء إلا تا إليه والله له مدح كلي كفلا إلهي بأود له نك ما أنت أودي سعين كاتها Samsonite nuclear ka inta soo madax ay ku jiraan sita maalin walow ilaahay soo gooyo 500 oo kun baa hortaagan White House-ka no other anaga madaxweyne loo bati
way aragtideeda kama tarjumayso wargaaladii gaalada ahayd ayaa ka xishootay waxyaalaha qaarkood iska daa inagoo muslimiino nin baa la soo qabtay sida xadiis saxiixi uu tilmaamayo markaasaa waxaa loo keenay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ninkii muxuu yidhi إني أتوب إلى الحق سبحانه ولا أتوب إلى محمد نقول سوق بتبع لي وارب الورن وأنا نقول إلهي ما نتوبت كيني لكن نكاسي محمد ومتوبت كيني ورسولك إلهي عليه الصلاة والسلام ومسلمين وحالت قال إنه عرف الحق لأهله رسولك بالكلمة داسد وقت شوابيك ورسولك إلهي ومخلوق إلهي أبو ركي وقفض لقبضنا كلمتي ونكي يري ورنقو إلهي بانو توبت كيني محمد كايدين هو قامني ومن توبت كيني رنبو شاقيبو رسول كوري لقد عرف الحق لأهله حقي إلهي رسمي هابو تلمامي الله وحنا هاون بو شاقي ورداي يبو رسولك عليه الصلاة والسلام هذا الإسلام كاوي لا أقبل كرماي هذا وحلي هاي محمد باشا حاجة حسن هلا سيدا وحن دي شيء وردول مقالة تقالم ورهي لنا وحيالها قار وإن هنتد اللي إيبيو يعني وحوي بقلال سنضاد عرورتو أي لها أي وأي نصعب كقرعنه لا يقبل منه والحكومة دي وحن كوانين ما أنت ما نديت كيدو أكتوبر كو إيجي أدر أود أملي هيدين وح خلاف سن وحاينو كيشي وحنو كهالينا مركانو لنا هاي وح خلاف سن وحاينو كيشي نوامح قضب كشناد دستور كجمهورية الصومال لا وحاينو غطال وحوالو شريعة كهر إيمانيا وميانا الصومال لا وحاي كيشي سما عقلا وشرعا waxaanu leenahay war hadda jinnina waa sii socotaan in yar baa idiin hadhay odaygaasi taariikhda Soomaaliland ku lahaa laakiin aynu ognahay duruufta maanta ku xeeranna war ka daaya dhibta ka daaya kuwan la hadlayna way garanayaan waxaanu kala hadlaynaa way garanayaan dadkana waxaanu u sheegaynaa war idinkoo dalka ilaalinaya waqti badan iyo hanti badan يا عرور بدن أي كل مني هذانا تلمية هاقولانينا تلمية أول جديدة ما هذا الكول الدنيا تلمية أول جديدة وحوي الظالم كإلا قبته والله إذا هذا وركده ومتهد منه وحوي إنك أقويها كالسيداي كوا كلا لميتكا الرنتي الدل كان تاريخ ذا كله يجنا هلا إلى لي أيان الله نهاي محنو دليل شري إسلامكو wuxuu yaqaanaa qofka qadarkiisa nin baa halkaa ka soo galay iyadoo saf dheer la fadhiyo oo saxaabadii oo dhan ay marka xalqadii baa xidhan Shurayh bin Abdullah al-Bajali meel uu ka gala ayuu waayay laano dee xalqadii way xidhan tahay marka qof muslima u banay qof kale oo muslima lama odhan karo rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa nin qiimo leh saxaabada qiimo ku leh ehelkiina qiimo ku leh rasuulku dareenkiisii baa isbedelay laana wuxuu arkay in saxaabigii taagan yahay in meeshina xidhan tahay nimankiina aanay fahmin inay meel u baneeyaan ninka odayga rasuulku laba go'o markaas xidhan yahay marka go'ii sare go'ii hoos rasuulku hoos soo saaray markaas uu jeeni qaartay markaas uu go'ii sare qaaday nabigu calayhi salaatu wasalaam sida intuu u duuduubay ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam u tuuray faqala ijlis calayhi go'ayga ku fadhiisay buu nabigu calayhi salaatu wasalaam markaas saxaabigii ilma ka soo dareertay go'ii buu intuu dib u soo laalaabay ayuu ku soo celiyay nabiga calayhi salaatu wasalaam ma kuntu liaq'uda ridaa rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam ma aanihi buu nin ku fadhiisan kara go'a rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabadii dareenkoodii baa soo jeestay ninka rasuulku go'a u tuuray dabeeta markaasay tafasaxu markay fahmeen qaabka rasuulku uu la hadlayo ayay u baneeyeen markaas uu soo fariistay ida jaakum kariim qawmin fa akrimu rasuulku wuxuu yiri
war haddii mid tolkii sharaf ku la idin yimaado qof karaamo leh hadduu idin yimaado fa akrimuuh karaameeya buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waddamada muslimiinta maxaa ka jira hebel karaamada ka qaada oo kaadhka ka guba oo allahuma salli calaa sayidina maxamed dee waxaad arkaysa subxaana allah waxaa la yaab badan ummadda maanta joogta ee aan la hadlayaa waxa weeye wardadii haw in badanna waa hadalnay waana hadli doonaa inta ilaahay subxaanahu wa tacaala annagoo dalkan inuu wax noqdo naf iyo maalba horena loogu horay dadka ku qanacsan somalilan inay jirto oo ay joogto aan ahay dad badan ay ku wada hadleen in ka badan dhowr kun oo qof oo dadkii aanu isku wanaagsanayn ahaa ay ku kala tegeen xagga aragtida dadkii muslimiinta ee badnaa oo ay waa ogtihiin soomaaliya markii ay jirtay wadaadadu meel walba waa iskaga iman jireen mar waloo aanu baxnana 100 su-aalood nalaga weydiiyo sababta aanu somalilan ku taageersannahay laakiin aanu ku qanacsanno aanu qancino waxaanu u sheegaynaa inta maanta taladu ay ku urursan tahay ee aan sharciga u lahayn inta maanta talinaysa maaha intii sharciga u lahayd ee ummaddu ay dooratay waan idiin sheegay war ka daaya dalkaa duminina war sidaa ku wadaan maaha nabadgelyo ilaalin sidaa ku wadaan waa in la isdilo dadku waa hubaysan yahay dadku waa divisionis dadku waa gobollo dadku waa kala aragti hantidii waa ku kala tagteen taladii waa ku kala tagteen wax walba waa ku kala tagteen ma maantay taagan tahay hebel ma odhan karo waxa weeye waxaasi ma habboona war aragtidaydu ma aha saldhiggaasi inuu ummadda dan u yahay iminkaan idiin sheegaya in badanna waa ka hadalnay dalkan dadka dulmigoodu ina haysto askartaasaa ka mida 500 ku la siiyo ee maanta gambadho fadhiya isagoo 10 carruura leh laakiin askartii baa koox laga samaystay gaar loo naasnuujiyo oo loo isticmaalo dariiqalda maxaa hebel lagu xidhaya isweydiin maayaan muxuu dembi galay isweydiin maayaan soo laalaabi ya war guri aan hub oolinima jiro ma shaqaynaysa adeertaas war intii waxaa ka dambaysa waa la isku dilay walan yuqbala minha lana aqbali maayo